faahfaahinnadan dheeraadka ee ka soo baxayo gaari hoomey ah oo lagu rasaasadeeyay inta u dhaxaysa deegaanka Biicade iyo deegaanka Burtashiiq oo hoos tagta degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gaarigan ayaa la sheegay in uu ka baxay deegaanka Biicade waxaana la sheegay in kooxo hubeysan ay rasaas ku fureen kaasoo ka dhalatay khasaaro dhimasho iyo dhaawac. ilaa 3 ruux ayaa geeriyootay 7 kalena oo ay dhaawacantay sida ay dadka deegaanka Biicade u xaqiijiyeen idaacadda kulmiye. ilaa haatan ma jirto sababta rasmiga ee ka dambeysay in kooxahaas hubeysan ay weerar ku qaadaan gaarigaas hoomeyda ee ka ambabaxay deegaanka Biicade kuna sii jeeday deegaanka Burtashiiq oo ka tirsan degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dadka weerarkaasi ku geeriyooday kuwa ku dhaawacmay ayaa lagu soo waramayaa inay ahaayeen ganacsato oo ku ganacsanaysay deegaanka Biicade maalinta Jimcaha oo halkaasi ganacsi uu ka furan yahay, kuwaasoo doonayay inay dib ugu laabtaan deegaankii marka hore ay ka yimaadeen ee Burtashiiq. ma ahan markii ugu horeysay weerar caynkan oo kale ah oo kooxo hubeysan ay weeraraan gaari hoomey ah, taasoo dhowr jeer weeraradaas oo kale ay ka dhaceen deegaanada dhinaca bari ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ma jirto wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada ay ku sugan aagaasi iyo maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe oo ku aadan dhacdadan ka dhacday deegaanka Biicade iyo deegaanka Burtashiiq inta u dhaxayso kooxo hubeysan ee gaariga hoomeyda ay ku weerareen.